22 sano oo dagaal ah kadib Soomaaliya dawlad rasmi ah ayay yeelatay xasilooniduna way soo laabanaysaa waxaana nala gudboon inaynu ka faa'iideysano fursaddan. We are now moving away from the chaos to an era of peace and development. 2013 dawladda Soomaaliya Brussels ayay aaday si ay u dhamaystirto barnaamijka xukuumadda waxayna la timid qorshe la magac baxay hiigsiga cusub. qorshahan oo la diyaariyay kadib wadatashi lala yeeshay shacbiga wuxuuna kulmiyay dhammaan baahida dadka Soomaalida ay qabaan. The needs, the aspirations, the priorities of all Somalis of all walks of life has been integrated into this one single document. bulshada caalamka way ku raacday qorshihii Soomaalida waxayna ballan qaadeen lacag dhan $2.5 bilyan taasoo lagu maalgelin doono 5 qaybood oo muhiim ah. barnaamijkan waxaa la yiraahdaa hiigsiga cusub ee Soomaaliya. We now have a clear and agreed roadmap of how Somalia can address its most urgent priorities with a focus on inclusive politics, economic regeneration and restored security. waxaa iska kaashanaya bulshada caalamka, dawladda Soomaalida iyo shacabkeeda. This new partnership agreement will help us to get Somalia back on its feet. The teachers, police officers, doctors and lawyers we train today are the people building the Somali state of tomorrow. laakiin shacbiga Soomaaliyeed muxuu hiigsiga cusub ugu fadhiyaa sidee soo saameyn doonaa noloshooda? si loo ogaado arrintaas filimkan ayaa u kuurgalaya. waxaan la kulmi doonaa dadka wax ku oolka ah ee ku hawlanaa dhismaha dalkooda annagoo weydiin doona sida uu caawin karo 5 himilo ee hiigsiga cusub. Soomaalida oo dhan hadda waxay ku naaloonaysaa nabad iyo deganaansho taasoo 5 sano ka hor ahayd riyo. safarkeenna koonfurta ayuu ka bilaabanayaa meesha ugu wax soo saarka badan waddanka halkaasoo beeralaydu soo saaraan khudradda iyo geedmiroodka loona ganacsi geeyo magaalada Muqdisho iyo dhammaan dalka oo dhan. Sheekh Maxamed Cadow waa ganacsade ka shaqaysta suuqgeynta dalagga. أهليدي شوقي الشباب دقاس قناعس ودقدقاق أما جرن لكن هدي دولة قبصتي أنت ما ملكشي حتى قلنتك هاي سيدا هي ذو horumarka amniga wax weyn buu ugu fadhiyaa shacabka halkan si fursadan looga faa'iideysto waqtigan waa in la helaa maalgashi. magaalada Baydhabo isbedeladii horta magaalada sidaaba may ka tiirsantaa beerali may eed injiilada lahaay haddii sidii ado international community mas NGO-lada haddii maalgelin lan helaw sida beeralayda oo gobolka Baay marba haddii magaalada walaaya ka nool beeralaydaas inta la maalgeli ya eedin haboonada lahaay taas ayaa ku door badan lahaay. shixnadaha Muqdisho waxay soo maraan dhinaca dhulka iyagoo ka imanaya magaalada Baydhabo caasimadda dalka. ganacsigu si xawli ah ayuu u kobcayaa laakiin weli waxaa jira caqabado ku horgudboon sidii nabadda maanta jirta u noqon lahayd mid joogto ah. amnigu waa mid ka mid ah himilooyinka ugu muhiimsan ee hiigsiga cusub. xukuumadda waxaa ka go'an inay dhisto ciidan xooggan oo midaysan oo leh kuwa dhulka iyo badda. garoonka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho waa u muhiim dhaqaalaha koraya ee dalka. amniga garoonkuna waa muhiim. ciidanka booliiskuna waxay la tacaalayaan sugidda amniga safarrayda. deeqa aadan caroole waxay ka mid tahay ciidanka booliiska hawshana si fiican ula socda. hadda ciidanka marka jacayl aan u qabo dartiis aad ayaan uga cabsadaa jabgoon jira kuwa walba soo abbaaraya naag nin baabuur kulli waa ku soo abbaaraya. tirada rakaabka kor ayay u kobcaysaa maalin kasta. booliiskuna waa kuwa mar walba u heegan ah. meeshaan waxaa ka dhacaya baaritaan lagu baarayo shacabka airportka ka dhoofaya. dadku waan baarnaa korkooda waan baarnaa boorsooyinkooda waan baarnaa si mashiinka gudaha aan loogu gudbinin qarax. saas ayaan u shaqaynaa. wallaahi maanta haddii loo fiirsho wax dhibaataa lama aanaan kulmin. wax dhibaato iyo wax buuqa oo wax rabshaan midna ma aanan la kulmin. jawiga saaka aan ku soo kacnay nabadu ahay sidii ilaa hadda nabadu yaa wixii gadaal ka imaan doona Allah yaa Allah.
hawl maalmeedka deeqa waa mid aad u sii kordhaya. 14 shirkado diyaarado ah ayaa u kala goosho waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa si ay u daboolaan jadwalka 60 duulimaad. dhismo cusub ayaa sanadkan awoodda shaqo ee garoonka kordhin doona. magaalada muqdisho aad ayuu u soo kacayaa macnaha hididiilada aan u jeedno macnaha aan rabno anaga aan hiigsanayno Soomaali haddaan nahay aad ayuu u soo ifayaa laamiyadii la dhisaayo dhismihii oo socdo magaalada adiga amniga xabad tirada badneed oo yaraatay muddo mar inay meel badha kale laakiin aysan sidii hore ahayn dadkii amnigii macnaha soo fahmaya ayaga shacbiga naftirkooda hadda waa la shaqeeyaan badanaa amniga. laakiin si guulahaas loo xaqiijiyo waa in amniga muhiimad gaar ah la siiyaa. waana halkaas meesha hiigsiga cusub uu ka saacidi doona dadka deeqo oo kale ah si ay hawshooda u gutaan. caqabado way iska jiraan sida qof oo sharci airportka u lahayn inuu ku galo kula dagaalamaya inuu galo oo kaleeto kee qarxayo kee iska ilaalinaya marka ma taqaan waa u baahanahay qalabka la iskaga difaaco kaleeto garoonka soo u dhan yahay kulligiis in maalgelin lagu sameeyo ayaan jeclaan lahaa. soonaha ka dhow iyo meel alla meesha checkpoint-kan ugu horeeya ilaa kan ugu dambeeya in lagu sameeyo siiba checkpoint-nada hore oo attack kow oo soo bilaabayo. in la ogaado baahiyooyinkaas oo kale kadibna loo qoondeeyo maalgelin waa sida ugu wanaagsan ee dib u dhiska dalka lagu samayn karo. guulaha ugu waaweyn ee uu dalku gaaray dhowaan waxaa ka mid ah baarlamaanka oo madaxweyne cusub doortay. si nidaamkaas siyaasadeed u shaqeeyo waa in qof walba cod ku yeesho heer qaran ilaa iyo heer degmo. taas ayaana ah sababta hiigsiga cusub mudnaan u siinaysa siyaasad loo dhan yahay si loo soo celiyo is-aaminaad bulshada dhexdeeda ah iyo qaadashada dastuurka federaalka. waa ujeedka ah in doorashooyin xor ah la qabto muddo 2 sano gudahood. mid ka mid ah rakaabka ka dhoofaya garoonka caalamiga ah dibna ugu laabanaya magaaladiisa Beledweyne waa siyaasiga Sheekh Xuseen Cusmaan Cali waana madaxa arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan. xafiiskan marka waa xafiiska sida gaarka arrimaha bulshada u quseeya ama u daneeya waaye waxbarashadii waxaa hoos imaanaya caafimaadkii waxaa hoos imaanaya odayaashii dhaqanka waxaa hoos imaanaya biyo nadiif inay dadka helaan. Beledweyne waa magaalo suuqiyo waaweyn leh dhacdana marinka ganacsiga isku xira koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya. waxayna caan ku tahay suuqa geela waxaana ku nool 100,000 oo qof. hadda magaalada Beledweyne ganacsigeeda waa u jeedaa hadda sidoo furan yahay oo camiran yahay waa aragtay. marka magaalada Beledweyne dadka degan waa dad nabadda jecel waa dad dawladda taabacsan waa dad ganacsiga ay aad magaalada ugu horeyso. marka insha Allah waa ku soo dhawaabaan ku leeyahay. dalka intiisa badan uu soo hagaagayaa laakiin halkan Beledweyne weli waxa ka jira dhibaatooyin. runtii xaqiiqatan maalmo hore waa la socotaan 2 qaraxa halkan ka dhacday. qaraxii hore ma garatay wuxuu ahaa qarax ma garatay rumuudka kuwa lagu hagaayo ahaa oo nin baa soo nidaamiyay. qaraxii kalena saldhiga la beegsaday maalmaha dareenkeena aad u kaxsanaa runtii maxaa yeelay bulshadii baa waxa ka soo gaaray qaraxdaas. Sheekh Xuseen wuxuu garaysan yahay inaad lahaato aqoon deegaan si aad u xalliso dhibaatooyinkooda. labada maalin odayaasha dhaqanka ayaan kulamo la leenahay oo beledka degan ayaan ku wareysanaa wixii ahwaashooda wixii akhbaartooda iyo xaaladda dalka uu maraayo. intaasna waxaan uga dan leenahay baahida ay u qabaan dawladda waxay uga baahan yihiin oo kale mesela haddii ay bulshadii u baahdaan mesela maamulkii gobolka ay u baahdaan sida gudoomiyaha gobolka sida gudoomiyaha degmada hadday u baahdaan ama wax maamulka kale ku saabsan u baahdaan bulshadii xiriiriya marka iyada xiriirinayso maamulkii ku xirayso. maanta waxa uu leeyahay kulankiisa isbuuclaha ah odayaasha deegaanka. adiga waxaa tahay gudoomiyaha xaafidka kuwashib hadda waxaa nila rabaa xaafidihiina marka Beledweyne aan soo galay marka xaafadii waxaa la rabaa marka xaafadii gobolka Banaadir aan ku dayasho u noqon oo qolo walba xaafadeedu waxaa la rabaa ganacsiga inuu soo noqdo nabadgelyada aad ka shaqeysaan gudoomiyaha xaafad saldhiga ugu yaal biliiska ugu la shaqeeyaa amnigii waa fiican yahay ganacsigii waa fiican yahay kaala arag hawsha u kala socdo. maanta ninka nabadiidka ah waxaa garan kara oo soo sheegi kara waa bulshada. ninka markuu yimaado qoys uu ku soo deganaa qoys oo bulshada kamid ah ku soo deganaa ninka waa qabiilka waa Soomaalida
وقبائل الصومالي وكميدها مركو يما مالو كسو دغنا baahida iyo danaha deegaanka ayaa asaas u ah siyaasadda qaranka. dareenkayga runtii magaalada beledweyne marka la yiraahdo runtii dareenkeena hadda aad u fiican yahay magaalada hadda aad u soo kacaysaa waad aragteen suuqa xoolaha waa soo arkay ganacsiga waa soo arkeen shalay bacdahan joogin waa aragteen magaalada marka aad iyo aad nabadgelyada u fiican tahay waxaana keenay isku duubni hay'adihii dawladda oo maamulkii uu kamid yahay iyo bulshadii shacabkii in la fahmo lana wajaho mudnaanta gobollada sida Hiiraan oo kale waa tallaabada koowaad ee dib u dhiska nidaamka siyaasadda dalka. horta maalgelinta beledweyne meelo badan ayaa loo baahan yahay laakiin meelaha hadda aan maalgelinta uga baahanahay waxa waa elaboorka iyo jidadka iyo isbitaalka oo arrimahaas aan ugu muhiimsan. barnaamijka hiigsiga cusub wuxuu hubaal ka dhigayaa in cid walba laga matalo maamulidda dalka, doorashooyin xor ahna la qabto muddo 2 sano gudahood iyo in dastuurka dib loo habeeyo. bismillaahi rahmaani rahiim diidka horta waa aadan u soo dhaweeyay waa maxaa yeelay waa baleenkii ugu horeeyay oo dawladdan ku meel gaar waa ka baxday dawladda waxay noqotay dawlad rasmi ah marka hadda runtii dawladdana fursad ay u tahay anaga ka gobol ahaan fursad ay noo tahay arrintaas insha Allah diidka marka waa aadan u soo dhaweynaynaa. dadka Sheekh Xuseen oo kale ah waxay furo u yihiin sidii loo xaqiijin lahaa in la helo siyaasad qaran oo ku aadan baahida shacabweynaha Soomaaliyeed. dhaqaalaheenu wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha nool 3 meelood 2 dadkeenu wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha iyo beeraha dhoofinta geeluna waa qayb muhiim u ah. la yaab ma lahan markaa in dawladdu u tixgeliso xoolaha nool furahaga korarka dhaqaalaha mustaqbalka. sidoo kale barnaamijka hiigsiga cusub waxa uu sugayaa kobaca iyo dhisidda ilaha dhaqaalaha Soomaaliya iyadoo la maareynayo khayraadka dabiiciga iyo maalgashiga kabayaasha si kor loogu qaado wax soo saarka shaqooyinna loogu abuuro dhalinyarada si heerka noloshu u fiicnaato. beledweyne suuqa geelu waa furan yahay. Soomaaliya waxa ku nool ku dhowaad 6 milyan oo geel ah waana meesha ugu badan adduunka. kani waa mid ka mid ah suuqyada ugu mashquulsan waddanka. Ibrahim waa ganacsade iibsanaya geel. maxaa markaad geelahay maxaa tiri ارتكي أورك وين أما أورك وين يرك وارنا أورك يرك 610 500 كنتون ساسة كلام أو دولار كلام روي أيه ارتكي وين مو وين واسكس دجير موكسنت اسقوا هو مروها يا بالك 900 كنتون 900 كنتون هذا مروها hilibka iyo caanaha geela waxa lagu isticmaalaa dalka laakiin lacagta adag waxay ka timaadaa dhoofintiisa. ganacsada Ibrahim oo kale deganaanshaha kobcaya wuxuu u saamaxay suuqgeynta xoolihiisa. geela beecshiradiisa waxa weeye hadba dalabyaa hadba heerkii xoolaha markaa iyaga ah loo baahan yahay oo jar ariga awrta ah sida awrta oo la dhoofiyo baahida ganacsi markii soo sheegtaan nimanka ganacsatada oo degan wadamadaas qaliijka ayaa waxa soo dalbadan xoolo waxaan doonaynaa xoolo nooca geel sida oo kale lo maanta horto nasiibkeena wuxuu ilaahay ka dhigay aduu ilaa 6 neef oo soo heshay oo gadnay waxa loo dirayaa meesha liiraa gobolada dhexe degmada Cadaado insha Allah waxaan jecelnahay inta marka wixii kale hore u joogi in sax la isku saaro hal lowr loo diro degmada gobolka bari ee Boosaaso magaalo xeebadka kadib saas loogu yeeriyo waxaana sida badan hadda xoolaha loo raraa Sacuudiga dawladda boqortooyada Sacuudi Arabiya. marka laga keeno suuqyada beledweyne geelu wuxuu ku hakadaa dekada Boosaaso. wargeela xagga u celiya xagga Maxamed Faarax waa mid ka mid ah ganacsatada dhoofisa ee gobolka. Maxamed wuxuu wadaa dhaqan qarniyaal soo jireen ka ah Soomaaliya kaas oo ah ka ganacsiga geela. for example hadii la yiraahdo su'aasha geela maxaa ku dooratay inaad ka shaqaysatay waaba jeclahay geela waa dhaqan dhiigayguba ku dhex jiraaba geeli moogta inaan dhaqanno baan waxaanu shaqeynaa xoolaha sababta shaqada xooluhu way ka duwan tahay shaqooyinka kale oo ah xafiis bay aadaysaa waa xiraysaa waa iska tegaysaa haddaad ma soo noqonaysid laakiin mararka qaarkood waxay kugu kalifaysaa xoolaha markaa ka shaqeynaysid subaxii ilaa habeenkii inay shaqaysid waxay noloshooda ugu tiirsan tahay xoolaha
oo geeli iyo ariga iyo lodi ama waxay ka helaan hilib ama waxay ka helaan caano ama way dhoofsadaan oo way ka ganacsadaan wixii waana waa resources diyaar ah oo waddankeeni noo yaalla marka in laga faa'iideysto dadkana looga faa'iideeyo waa arrin aad iyo aad muhiim u ah dhaqankii hore waxaa beddelaya dhaqan casri ah maxamed geeliisa waxa uu maraa baaritaan adag ka hor intaan loo iibgeynin dibadda hadda maanta waxaan aragtay geelan oo ka shaqaynayna oo maxjarkii joogna marba meel bay xoolihii ka keenaan oo ay ka yimaadaan marka boosaaso waa meel u furan xoolaha Soomaaliya oo dhan meeshay ka dhoofaan marka hadde ganacsigu guud ahaan xooluhu meel kasta ka yimaadeen laakiin meesha ay ka dhoofaan oo lagu baaro oo caafimaad waa halka kan adunkuna hadda indhiina wax ku arkayseen geel iyo physical laga shaqeynayo iyo asagiyo dhiigii maaragta blood sample la sameeyo laga shaqeynayo inta ma arkayseen Sacuudi Carabiya waxay qaaday xayiraad 9 sano saarnayd soo iibsashada xoolaha Soomaaliya kaasoo gilgilay dhaqaalaha haatan ganacsatadu waxay naawilayaan inuusan haka dambe gelin ganacsigooda baarka dhiiga physicalkii maxaa ku raada dusha iyo waxyaalaha la baarayo dabadeedna dhiig baan ka qaadaynaa dhiiggaas iyo baarkaas la geeyo lagu baarayaa insha Allah Sacuudi buu dhoofayaa geela kaliya noo dhiman oo hadda fiistaynayni insha Allah bacda qadan isagana u imaanayna iyo xogaha soo dega dhameystiraynaa xogaha hadda gawarida ku hadda geela xaga ka soo degaysa baabuurka xaga yimid meesha ay boosaaso ku taalla aawadeed ayaa u saamaxday ganacsatada Soomaalida sida Maxamed oo kale inay la tartamaan waddanka Australia oo haystay suuqa xoolaha ee khaliijka Carabta boosaaso waxay ku taallaa strategic location oo u dhow wadamada khaliijka Gulf countries oo aan xiriir dheer oo ganacsi marka xoolaha meelaha u dhoofino oo kale ee geel oo kale markaan ka hadlayno ariga kulli waxaa ka mid ah Sacuudi Carabiya oo aad geelo u qaata Dubai oo kale Imaaraadka oo geela ayaga laftigooda qaata ogtihiino hadda dadkii adduunku wuxuu rabaa inuu soo barto oo u soo noqonaya cunidda iyo cabidda geel hilibkiisi maxaa la yiri waa daawo caanihiisina maxaa la yiri waa daawo Dubai hadda badan baa laga sameeyay waxaa arkaysaa chocolate camel chocolate moogta ice cream ma laga yaabaa wadamada khaliijka barkee wuu ka fiican yahay kan kale 3 sano ee la soo dhaafay kaliya in ka badan 3.5 milyan oo xoolo ayaa laga dhoofiyay dekedan waana 80% dhoofka guud ee Soomaaliya ka ganacsiga xoolaha caafimaad qaba waxay furo u yihiin mustaqbal leh horumar iyo barwaaqo saddexduba waa natural resources ka ilaahayna siiyay oo available ka diyaarka ah maanta oo laga heli karo Soomaaliya lagana shaqeysan karo boosaaso waxay dibadda u dhoofisay $700 milyan xoolo u dhigma 3 sano ee la soo dhaafay waa fursad xiiso gooni ah u leh barnaamijka hiigsiga cusub waxaase weli jiri kara fursado kale jidadkuna way fiican yihiin meelaha badankooda markii la fiiriyo laakiin markii Puntland iyo koonfurta laga hadlaayo oo hadaad rabto inaad Beledweyne ka timaadid oo kale ama meel ka shaqeysa rabto inaad ka timaadid jidadku waa xun yihiin infrastructure-ku aad buu u baaba'san yahay marka meel lagu tagi karay 8 saac hadday kaa qaadato 3 maalmood ama 4 maalmood hadda waa dareemi kartaa halkaas waxaa jira hoos u dhac oo xaggi maaragtay ganacsiga ah wadooyinka oo xun oo kaliya maahan dhibaatada jirta caanaha geela Soomaaliya wuxuu soo saaraa $100 milyan lacag u dhiganta sanadkiiba laakiin ma lahan warshado lagu sanceeyo aad bay u fiicanta waxyaabaha aad ugu xumaay waxaa ka mid ah annagoo ah wadamada ugu xoolaha badan adduunka baa haddana milk powder banaanka keenayna annaga ahayd inaan caano dhoofino haddii ganacsatadu xoolaha la maalgeliyo oo bacdama xoolo badan aynu leenahay la warshadeeyo caanaheedii waxaan aaminsanahay mustaqbalka in caanaha Soomaaliya la iib geeyo ujeedada barnaamijka hiigsiga cusub waa maareynta kheyraadka dabiiciga sida geela iyo dib u dhiska wadooyinka
si ka ganacsiga xoolaha u bulaalo qaabkan soomaalida sida maxamed oo kale ah waxay u abuuri karaan shaqooyin wax ka bedela qaab nololeedka ee mustaqbalka haddii la maalgashado oo hilib ahaantooda iyo caana ahaantooda intaba loo maalgashado waxaan aaminsanahay inay noqon karaan industry aad iyo aad looga faa'iido shaqo abuur tiro badanna loo sameeyo si loo xaqiijiyo faa'iidada soo kabashada dhaqaalaha in loo wadaago si siman ayuu barnaamijka hiigsiga cusub waxa uu diiradda saarayaa dakhli ururinta iyo adeegga daahfurnaanta iyo canshuur ururinta la isku hallayn karo iyadoo lagu lamaaninayo maarayn wanaagsan oo hantida dawladda ah taasi waxa ay sahlaysaa wanaajinta adeegyada sida iskuullada isbitaallada iyo hawsha booliiska dekadaha kobcaysa sida boosaaso oo kale dakhli ururinta waxaa ku shaqo leh saraakiisha canshuurta sida khadre sheekh ibraahim waa gorgorado masar waxa weeyaan waa baabuurta ciyaal ku ciyaaraan waxyaalahaas alaabta ka soo degta weeyaan dekada qashinkaas alaabtaas oo sitaa alaabta loo tirinaya marka tirinta hadda sugaya waxa meesha u taaganahay markii la tiriyo baa warqada loo jaraya warqadiisaan qaadanaya waxa loo jiray warqadii lacagta gudahan la galaya xafiiska isagaan sugaynaa insha Allah Soomaaliya waxa ay leedahay xeebta ugu dheer Afrika waana 3,000 oo kiiloomitir ganacsiga baduna waxa uu jiray kumanaan sano ka hor dalka waxaa ka jira 4 dekedood oo waaweyn boosaasana waa midda ugu shaqada badan sheekinku way halkan wax fiiska xisaabaad nin walba uu daahsan yahay wuxuu rabaa inuu degdego durba lacagtiisa qaato warqad lacagta soo warqadiisa qaato dekada boosaaso waa muhiim waa qaybta lafdhabarta ugu muhiimsan Puntland dadka ku nool Puntland iyo dadka Soomaaliya ku nool in badan bay anfacdaa maadaama deganaashuhu ka soo reynayo dakhliga dekadu waa uu laba jibaarmay idaacadaha ka soo degay fara badan yihiin waxa ka soo degay raashinka la cuno anagu ma lihin dhul beereed fara badan oo raashin nooga soo baxaan ayadaanu fiirsanaa waxa nooga soo dega bariis bur bagaash sharaab gaadiidku waa shayga muhiimka ah laf dhabarta ah laakiin inkastoo isticmaalkeedu shaqo kordhayo waxa iyadana jira caqabado in lala tacaalo u baahan oo loo tirnay alaabta calaashay baa loogu tirnay warqadan inay iswaafaqdo iyo alaabta meesha saaran wax badan baa iska bedelay shaqadu way badan tahay alaabo fara badan baa timaada oo aan markii hore iman jirin shaqada ay badatay shaqadu way badatay dakhligu waa batay shaqaduna way badan tahay xilligii aan ka bixin saacad inaan ku dirsada laga yaabaa waxa laga yaabaa in hadda ay soo degto inta soo doonayay ay 4 doonay 3 doonay ay yimaadaan in la mid ah in haddana baxda galabta loo fudeeyo dadkii xoolaha lahaa si aan u tacadiin si aysan dhib u arag durba loo gudbiyo maamulkana waa la dhacsanahay waxa weeye waa wax qabad amni hadii adiga cabanaysan hantida iyadoo aan meesha uga tagno oo waxa weeye security aan u baahnayn oo aan waardiyo u baahnayn oo aan maartay dekadu maartay adan ka cabsi qabin inay wax dhib ku yimaadaan aad ururinta dakhliga dekadaha Soomaaliya kadibna u maalgelinta adeegyada bulshada iyo kaabayaasha muhiimka ah sida wadooyinka waxay ka qayb qaadanayaan dib u dhiska dalka si arrimahaas u hirgalaan ayuu hiigsiga cusub waxa uu diiradda saarayaa suurtagalnimadooda dhismaha waxba iskama bedelin dhismay u baahan tahay horumar bay u baahan tahay waxqabad bay u baahan tahay waa dhismihii la dhisay 1986 uma qalanta xoolaha ka daga iyo inta ilaagta isma laha way u baahan tahay inay hesho isbedel inay hesho fidin inay la balaariyo oo la weyneeyo sida qaybta maraakiibta oo kale marka weyn kuma soo xidhan karo Puntland way u baahan tahay in la maalgeliyo Puntland khaas ahaan sida goobaheeda shaqada ugu muhiimsan ee wax soo saarka leh shaqaale fara badan baa ka shaqeeya dakhli badan baa ka soo xirooda dad badan baa macluumaadkeeda macnaha ku xisaabtama waa isha kaliya ee Puntland hadda dhaqaalaheedu ka soo galo haddii la maalgeliyo oo la dhiso oo la wanaajiyo waxa ka soo baxaya dhaqaale fara badan dhaqaalahaasina waxay galayaan magaalada sida shaqaalaha oo kale cisbitaalada oo kale goobaha meelaha isteeshimada way u baahan yihiin dib ay ugu noqonaysaa shicibka gudihiisii dadka khadra oo kale ah waxay muhiim u yihiin sidii loo sugi lahaa wadaagista faa'iidooyinka ka soo xarooda ganacsiga dib u soo kobcaya
nidaam garsoor ah oo daahfuran dadka oo dhanna u siman yihiin ayaa asaas u ah bulsho cadli ah waana himilada ugu dambaysa ee barnaamijka hiigsiga cusub tababarista iyo qalabaynta garsoorku waxay saamaxaysaa in ay Soomaalidu hesho nidaam cadaalad oo helistiisu fududahay isla markaana xalliya cabashooyinka hadda maxkamadda deegaanka Boosaaso garsoore Axmed Cabdullaahi Maxamed waxa uu dhageysanayaa dacwad rayid سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين sanadkii 1997 nidaamkii sharciga waxa uu lahaa 84 maxkamadood 8 maxkamad gobol 2 maxkamad racfaan iyo maxkamadda sare laakiin waqtigii dagaalada nidaamkii sharciga dhammaantiis uu burburay نحن كنا ندير حلو بهي ما تقعنا وقت ما ورجع قارن كالفتي قوانين دلتو الحجية يبرشة ما تبع يقاف كالفتي قوانين الصومالية سيد دستور لوجري دقانها دستور الصومالي لوجري هرتا مجتمع مركي ودكو وقتها ودكو بالبراء حياربها بعض أخلاقيات كودي يعبرقهم كودي يوقفكوا إنه ما تقعنا ذلك البراءة اللي نبضوا وحيالي بس كبضان نساء أول مركي واحد عام حرية وعامين ذلك بس كده من جنين أما إن أي جرتوا حقا لهم ذلك أي وقفكوا أما جهل اسكت جري أربوس وحيالك كلا جري لكن قفك هندو حلقة جالسية اللي لو جيسو هدي هنتي وحلقة وحسوق قبلايا محكمة السؤال تسامح الشغالة بدين إنسان سببت أبو شيء راح يفهمين محكمة دا يمارس الساعة عدالة بقصة marka aad baa maxkamada loo xiray aad baa loo xiray heerka thaqaafa qaanuun kasto si loo baahnaa wali bulshada mujtamac uusan gaarin haddana waxa muddo xogaa in maanta la soo kabanayo barnaamijka hiigsiga cusub waxa uu tilmaamayaa nidaam garsoor oo cadli ah daahfuran inuu ka mid yahay mudnaan muhiim u ah waddanka balse ay jiraan caqabado adag garsoorayaashu hadda waxay dareemayaan xagga ammaanka in ammaankooda uusan mataqaanaa ammaanka la filayay ana mataqaanaa oo looga baahnaa garsoorku inuusan boqolkiiba boqol ahayn qofku is ahayn oo garsoorku ama ha ahaato adraab dacwo u qaaday ama ha ahaato dhibaatooyin kale mataqaanaa iska amni darro gudaha waddanka ka jirta aniga shakhsi ahaan ma jirto laakiin waxaa jirta garsoorayaal fara badan oo xeeryaalayaal lagu dilay magaalada tan Boosaaso gaalkacyo ku lagu dilay yani ciddii walbo sharciga iyo kala damaynta aan hoggaansinkooda aan jeclayn sharciga waa in la abuuraa la isku raacaa shaqaalana loo tababaraa lana siiyaa qalabkii u saamixi lahaa shaqadooda in qawaaniinta Soomaaliya la geliyo iyadana dhaqaale la geliyo sharci yaqaanada dhaqaale la geliyo hawshaas maartay ahmed la siiyo dheeraada ayaa maartay dhinaca la geliyo iyo cid kale la xirta shaqadaas waxay qaadanaysaa shaqo aad u badan iyo lacagba si loo dhiso adeegan muhiimka u ah nolosha bulshada mana ahan meel la iska indhatiri karo sida garyaqaan Maxamed Bawaaye arag u yahay aad iyo aad baan wanaagsan u qabaa New Delhi sababtoo ah garsoorku waxaan isleeyahay ra'yi ahaan waa wax kaliya wax dhaba loo shaqo loo qaban karo mid dhamaystiran loo qabo cid kalena qof walba bini'aadan ah Soomaaliya inuu xorriyad iyo xaqiisa u leeyahay iyo cadaalad iyo sinaanshaha waxa loo baahan in lagu dadaalo in aan soo jeedinayaa marka cadaalad la markaas dadka bulshada ay qof walba oo horumar la gaari karo laakiin haddii cadaalad aan helin waxyaalaha keena dadku burtooda oo baraha keena cadaalad darrada keena marka intaas cadaalad la xoojiyo iyadoo asahan looga sii gaayo amniga la sii xoojinayo safarkan aan Soomaaliya ku soo marnay waxaanu kula kulannay dad si adag ugu howlan dib u dhiska fursadaha ay ka heleen nabadda iyo deganaanta hateer jirta barnaamijka hiigsiga cusub waa mid firfircoon waa nidaam nashaadi ah ama soconaya waa inaan xaqiijinnaa inuu u taabagallo sidii loogu talagalay himilooyinkiisa amniga siyaasad loo dhan yahay ilo dhaqaale dakhliga iyo adeegyada iyo garsoorku waa qorshe abuuri kara xaalado wanaagsan oo Soomaalida dhammaanteed ku barwaaqoobi karto caqabadaha nagu gudboon qaran ahaan waa inaynu uga faa'iidaysanno sida ugu habboon oo aynu awoodno